Soviet-ka nimankii la oran jiray ninkii la oran jiray Vladimir Lenin ayaa wuxuu sameeyay asalkii ugu horeysay nidaam nimankii guulwadayaasha ugu horeysay ee ciidan ah ee dress xidhan ee maryo isu eeg leh ee loo aqoonsaday nimankaas inay guulwadayaal yihiin nimankaas waxaa la oran jiray Komsomol baa la oran jiray Komsomol marka ninka Lenin la oran jiray markii isu taga weyn ee Soviet-ku u yimid ee la isku darsamay intaan isku darsamin baa Soviet Russia buu ku soo sameeyay marka hore nimankan laakiin waxa la sii casri garay markii nidaamka Soviet-ka ee jamhuuriyaddu wax xoog isugu beeraan Soviet-ka Union-kii weynaa la sameeyay waxa la sameeyay wuxuu dejiyay siyaasad nidaamkan ma taqaana shuuciyada lagu beerayo dhalaanka iyo dadka ka soo kacaya dawladda haysta nidaamka Soviet-ka oo dhan qalbigooda lagu beerayo si ay u soo kacaan dadka kacaniyahana oo yacni nidaamkan cabsan oo difaaca oo meel kasta ka buunbuuniya oo yacni aan dhinacnaba uga baydhinin marka wuxuu sameeyay ninka Vladimir Lenin la oran jiray oo shuuciyada ma taqaana dee aabaha shuuciyada la yiraahdo weeyaan iyo nidaamkan hadda wadaagga iyo waxyaabaha soo dhan saddex darajo buu sameeyay dhalinyaradii baa wuxuu qaybiyay saddex qaybood wuxuu sameeyay koox yar oo dhalinyaradu markay 7 jir gaaraan ilaa intay gaarayaan 14 jir gaarayaan waxa loo sameeyay nidaam la yiraahdo urur baa loo sameeyay leedo Little Octobers la yiraahdo dabcan luqadda Russian-ka wuxuu ku leeyahay magac kale buu ku leeyahay laakiin English ahaan Little Octobers loo oran jiray waxa weeyaan Little Octobers kaasi waa halka laga soo dheegan doono marka dambe ee la sameeyay kacaankii Soomaaliya markii meesha qabsadeen askartu waa halka laga soo dheegan doono ubaxa kacaanka dhalinyaradii loo bixiyay la oran jiray ubaxa kacaanka wuxuu sameeyay markaa niman kale oo qolada teamka ka weyn 14 jirka qofku markuu dhaafo ilaa intuu gaarayo ma taqaanaa 20 jirka waxa loo sameeyay iyagana urur kale oo la yiraahdo Pioneer Movement la yiraahdo oo iyaguna darajada lodka ka weynaa lodka saddexaad baa markaa waxa loo bixiyay Komsomol waxa weyn markaa waa nimanka guulwadayaasha caadiga ah dhamaantood dress bay lahaayeen laakiin guulwadayaasha caadiga ah hadhow dresska macal Soomaaliya la keeni doono wax yar un laga bedelayo waa nimankaas weeyaan waxay lahaayeen dress akhtara bay lahaayeen oo green ah surwaal gaaban shaad akhtara gacmihiisu gaaban yihiin iyo qoor xidh yar oo cas oo laba faraq leh ay lahaan jireen halkan jeebka bidixdan waxa loogu dhejin jiray aabihii Soviet-ka baa loogu dhejin jiray Vladimir Lenin ay kaga dhejinaan jiray bartan marka horta nidaamkaas yacni cid ugu horeysay abuurtay waqtigan casriga wuxuu ninka Lenin buu ahaa guulwadayaasha waqti kuwaasi qayb bay ahaayeen guulwadayaashii kale ee xoog ugu caansanaa horta guulwadayaasha nidaamkaas yacni saddexda urur ee kala duwan waxa laga sameeyay dawladihii Soviet-ka ee nidaamkan wadaagga qaatay oo dhan sidoodii bay u qaateen ay u koobi gareeyeen shaqooyinkii ay qaban jireen ayaanay u dirsadeen ma garatay waxa weeyaan haddaba qolada kale ee iyaguna caanka ahayd ee soo caan gareeyay shayga nidaamka guulwadaynta la yiraahdo waxa weeyaan waa nimankii Naaziyiinta la oran jiray waqtigii Hitler markuu waday kacdoonkan iyo ma taqaana inuu nidaamkan abaabulo dunida xoog ku maqooniyo waxa jiray meeting ay ku sameeysan jireen kulamo ay ku sameeysan jireen qoliyadahaas ee kacaankaas wada magaalada Munich la yiraahdo ee ma taqaana Jarmalka marka niman baa jiray la dhacsanaa oo dhalinyaro age-kooda aan xoog weynayn oo la dhacsanaa yacni nimankan nidaamkay wadaan iyo waxay abaabulayaan iyo ma taqaana kacdoonkan iyo ma taqaana in sharaftii ma taqaana dadka Jarmalka dib loo soo celiyo aad ula dhacsanaa nimankaas dhalinyarada waxay sameyn jireen nimanka madaxda Hitler uu kamid yahay Adolf Hitler uu kamid yahay meesha ay ku shirayaan ay ilaalin jireen waxa weeyaan yacni way ka ilaalin jireen yacni haddii balaayo ku soo socoto haddii ciidan ku soo socdaan haddii la soo weerarayo waxay ahayn adigu kind of basaasiin haddana ma taqaana meeshana gaar garanaya nimanka waxa la oran jiray magacooda Salzstut baa la oran jiray Salzstut waa kelmad asalkeedu yahay German oo ma taqaana German language nimankaas baa waxay sameeyeen waa halka guulwadayaashii naasigu barta ay ka bilaaban doonaan nimankii waxay noqdeen niman gacan yarayaal oo ah nimankan Hitler iyo nimanka kale saaxiibadii ee ragga waaweyn ee kacaankan wada gacan yarayaal waa wax alaali waxay u baahnadaan u keena soo basaasa wax meesha wax ka dhacayaan qaabka loo fulinayo niman ay ku nasteen bay noqdeen nimankaas marka Hitler ninkii la oran jiray nimankan aad buu la dhacay shaqadooda nimankan markii dib awoodoodu way sii balaaratay waxay awoodooduna sii balaaratay sida buugana way ku xusan tahay markii madaxda looga dhigay ninkii la oran jiray Himmler oo nimanka ugu waaweyn naasiga kamid ahaa oo ma taqaana nin aad ma taqaana caalamka fara baan ay ka yeelaan oo kiisas fara badan loo haysto Himmler waa ninka lagu eedeeyay inuu nashqadeeyay shaygii la oran jiray xasuuqii Yahuudda loogu geystay meesha waxa leedahay waa maskaxdii ka dambeysay ee nashqadeysay weeyaan sidoo kale ninka iyo guulwadayaashaas Salzstut la oran jiray iyo gudoomiyahooda Himmler waxay shaqo ku lahaayeen yacni wax alaaliyo wixii weynaasiintu ay sameeyeen garab weyn iyo koox weyn ku lahaayeen oo markii dambe yacni way dhaafeen inay dad soo basaasaan soo dhegayaan hawlaha ka shaqeeyaan waxay gaadheen yacni heer awood ay ku muqooniyaan dadku ay ciidanka ka mid noqdaan
qoladaasina waa qolayagan intaasaynu ku dhaafaya qolada saddexaad ee ugu caansanayd waxay ahayd waqtiyadaas oo kale yacni dagaaladaas kale socdeen dagaalkii labaad adduunka iyo dagaalkii koowaad adduunka iyo waxyaabahaas waxaa jiray dabcan sorry I mean dagaalkii labaad adduunka nimanka ugu caansanaa waxaa ka mid ah nimankii Hippocorbiska la odhan jiray Hippocorbis waxay ahaayeen markii uu qabsaday ninka la yidhaahdo Hitler uu qabsaday dalka la yidhaahdo Denmark dagaalkii 9 casho socday uu ku qabsaday meeshaas oo ku jabiyay halkaas ee dawladdaas meesha way qabsadeen naasiyiintu marka niman baa jiray Hippocorbis la odhan jiray Denmark waxaa ku nool dad fara badan oo asalkoodu yahay ethnicoodu yahay German oo mataqaanaa number aan yarayna dadkii magaranaysa asalkoodu markaa Jarmalka ahaa baa waxaa laga qortay ciidamo goolwadayaal oo Hippocorbis loo bixiyay Hippocorbis marka waxaa loo xil saaray dadkan oo dhan ee dhakada laga qabsaday dalkan dhan ee la qabsaday inay basaasaan jaajuusaan cidii dib socodnimo wada cidii kacaandiida waxaasoo dhan inay gacan bira ku qabtaan oo qofkii la fahmi waaye dadkii intii loo baahan yahay la dilo wixii kale ee mataqaanaa ama hawlo kale looga baahan yahay ama xuduud iyo awood kale oo la doonayo lagu shaqaystana waxaa loo dili jiray xerihii la odhan jiray concentration camp ee ku yaalay Jarmalka xerihii dhaqan celinta ayaa si toos ah oo direct loogu diri jiray marka Hippocorbisku waxay u geysteen iyaguna yacni nidaam goolwadayaal bay ahaayeen ku bilowday si fudud oo basaasnimo hawlahaas laakiin waxay gaadheen markii dambe inay noqdaan awood caadi ah oo muquunisa dadkii u geysata halis iyo mataqaanaa threat fara badan ku ah markii dambe ay ka baxeen naasiyiintu Denmark dadkii ku shaqada lahaa Hippocorbiska ilaa 300 oo qof baa hal maalin la joogtay waayo dhibaatadii iyo dulmiga ay ka galeen dadka reer Denmark darteeda waqtiga baa inagu yar marka waxaan doonayaa inaan isku dayo inaan soo ururiyo ma waxaan ka hadlayo dhan waxaan ku gabagabeynayaa yacni guulwadayaasha hore intaan u soo gelin Soomaalida iyo dhulkeedan oo maadaama buugayga badankiisu qusayaba niman baa jira yacni ilaa maanta shaqeeya oo guulwadayaal ah guulwadayaashu waxay yacni buunbuuninta amaanta yacni isku dirka basaasida jaajuusida wax kasta oo istubidnimo ah oo yacni guulwadayaashu ay leeyihiin niman leh baa jira waxa leedahay nimanka basiij waxay ka jiraan ilaa maalinka maanta caawa aynu ku jirno barnaamijkan waxay ka jiraan dalka Iran la yiraahdo basiij waxa weeye nimankaas hortaabka ku bilaabmeen in concept yar guud hadaan ka bixiyo Iraq iyo markay isleeyeen Iran waa dagaalkii 8 sanadood ahaa mataqaanaa ilaa soconayay ilaa 88 Saddam Hussein oo la galay nidaamka Khomeiniga Iran waxay ahayd niman dhalinyaro oo xamaasadaysan oo Iiraaniyiin oo si volunteer dagaalka iyagu galay dagaalka Iraq kala qayb qaatay marka nimankaas waxay ku shaqeynayeen si hagarbaxa ayatullah mataqaanaa Khomeynigii hore oo aad u helay nimanka dadaalkooda iyo dhalinyarada iyo xamaasadda iyo daljacaylka ku jira nimankii markii waa la ururiyay markii dagaalkii uu dhamaaday Iraq lagu jiray waxaa laga dhigay niman yacni dawladda loyal u ah nidaamka Khomeiniga loyal u ah xaaris nimanka mataqaanaa revolutionary guard kala yiraahdo ee Iran ciidankooda daacad u ah ayay noqdeen nimankii marka waxay ka shaqeyn jireen basaasida inay dadka Iran tahay inay dhex galaan inay jaajuusaan ardayda basaasaan qofka dib socodnimo wada waxay kaloo yacni nidaam diimeedna uu ku jiraayo qofka lagu arka xijaab inaan xijaab xidhnayn yacni inanka gabadha lagu ogaado inay shaqaansadaan dadka mataqaanaa xashiishadii waxyaabaha ka ganacsada maandooriyaha shaqadoodu aad bay u ballaarantay nimanka basiij la yiraahdo marka laakiin shaqooyinka ugu xun ay qabtaan waxaa ka mid ah yacni dadka Iran oo kale caburis fara badan baa saaran markay dadkaasi damcaan inay dareenkooda cabiraan basiij baa lagu dhex daraa basiij waxay sameeyeen marka rabshado dhul bay gubaan warshaday gubaan sida darteed baa kacaanku wuxuu ku banaystay nidaamka Khomeini inuu dadka caburiyo oo leedahay dhibaatadaas ay wadaan mushkiladihii ugu waaweynaa ay geysteen marka basiij oo kale waxaa ka mid ah yacni in dagaal markii 2009 oo kale Iran waqtigii uu ka socday yacni kacaanka la odhan jiray waxaan u jeedaa kacdoonka la odhan jiray green movement ama mataqaanaa color revolution markii Ahmed Najad oo kale doorashadii ku shubtay 67% uu Iran helay iyadoo la og yahay dadka mucaaradka inay badan yihiin iyo axsaabta mucaaradka inanka Hussein Musafini iyo ragii kula tartamay meesha awood ku muqooniyeen dadkii way mudaharaadeen Iran marka waxa lagu dhex daray basiij nimankii la odhan jiray buna rabshad sameeyay dhacdooyinkii maalintaas kale ay sameeyeen aan ku gabagabeynay baabkaas aan kaga baxay waxa weeyaan ugu caansan taariikhda adduunka marka meel walba nimanka lagu baraarugay awoodooda iyo qaskooda waxa weeyaan markii ay dileen inantii la odhan jiray inantii ardayda ahayd la odhan jiray waxaan malaynaa aan dad fara badan oo garanayaan kala ku jira inantii la odhan jiray nada suldaan la odhan jiray nada aqa suldaan baa la odhan jiray oo si live ah iyadoo kamarada la duubayo caalamka saxafiyiin carabi joogan hor ay baas ku fureen marka nidaamkaas